kulan wacan wanaagsan daawadayaashaanu jecelnahayow ku soo dhawaada muuqaal cusub ayaan saaka idin wadnaa. dhawaanahanba waxaa la hadalhayay dowladda Itoobiya inay aqoonsan doonto maamulka uu hoggaanka u hayo Muuse Biixi Cabdi ee Somaliland, isla mar ahaantaana ay doonayaan in markaasi dhulbadeed istiraatiiji ah ay markaasi dekadii ay ka samaystaan ay ka helayaan maamulkaasi sida horena uu sheegay Muuse uu saxiixay. balse taa waxaa ka dartay shirkad laga leeyahay dalka Itoobiya, Ethiopian Airlines, markii duulimaad ku soo wajahnaa magaalada Hargeysa ay ku qoreen in markaasi ay ku wajahan tahay Somaliland Republic, oo la micno ah in Somaliland ay ka madax bannaan tahay Soomaalida inteeda kale. arrinkan ayaa waxaa kaga hor imaaday siyaasiyiin iyo shacab, ayagoona markaasi ku tilmaamay in Ethiopian Airlines gabi ahaanba laga mamnuuco geyiga Soomaalida ay degto markaasi geeska Afrika. duulimaadyada ugu badan Ethiopian Airlines ay samayso qaaradan Afrika ayaa waxaa inta badan customerkeeda u badan Soomaali, haday ahaan lahayd ganacsi iyo sidoo kale safarada kale ee qaaska ah. balse arrinkan ayaa waxaa xadgudub uu ku yahay jiritaanka ummadeed iyo dowladeed ee Soomaalida. taa ayaa haddii sii socotan waxa ay caqabadii ku noqon kartaa geeska Afrika, oo markaasi saansaan colaadeed ay ka dhalan karto. dowladaha jaarka la dowladda Itoobiya iyo sidoo kale beesha caalamka ayaa aad kaga digay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay mar kale isfarasaaraan, iyadoo la og yahay taariikhda 1977 markii ay isfarasaareen labada dowladood oo quwad ahaan markaasi sinaa in Itoobiya afka ciida loo diray, isla mar ahaantaana ay soo gurmadeen midoogii Sofiyeet ee markaasi labada dowladood ay ka wada tirsanayeen. arrinkan ayaa haddii uu sii socdo daandaansiga Itoobiya ay ku hayso Soomaalida ayaa waxa uu noqonayaa markaasi mid carada ka dhalata ay sababi karto in Itoobiya salkeeda Soomaalida laga eegi doono. daawada adigani daawanaya sidee bay kula muuqataa xadgudubka shirkaddan Ethiopian Airlines ee dalka Itoobiya laga leeyahay ay ku dhaqaaqday, isla mar ahaantaana ay doonayso in Soomaalida ay ku kala goyso iyadoo markaa danaheeda gaarka ah fiirinaysa. Itoobiya ayaa taariikh soo jireen waxa ay ka dhaxaysaa Soomaalida, iyadoo ilaa iminka lagu tuhunsan yahay in dhul Soomaaliyeed uu ku maqan yahay kaasi oo gumaystihii kala xadeeyay dhulkaasi uu mariyay dhanka Itoobiya. balse Soomaalida ayaa weli ku taamaya in dhulkaasi maalin uu gacantooda u soo geli doono Soomaalida inteeda kale la midoobi doono. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. halkan haddii aad soo gaartay share dheh, like tahay inoo saaro, subscribe tahay noo dheh. qaybta hoose faaladana waa inoo muhiim, faaladaada waa inoo dhiirigelin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. halkan waa Qab TV.